haddaad tihiin dowladda Turkiga waxaynu ka codsanaynaa qabiil qabiil inaadan u duqaynin aadan noo duqaynin annagu diyaaradaha adduunkana ma haystaan idinkaana haysto dowladda Turkiga walaalayaal waa markii saddexaad afraad aan idin sheegayno annagu istiraatiijiyadiini suuqiina horta ah saamaynta istiraatiijiga waxaanoo dhan waxaad idinku aad tihiin iyo sahminta amniga shidaalka annagu waxaanoo dhan kuma nihin kamana soo horjeedno dhibaatana idinkuma nihin walaalayaal qabiil qabiil loo duqaynayo annagu weligeyna ma arkin xasan sheekh dowlad maahan waa qabiil ka mid a qabaa'ilada Soomaaliya mandate ku haystay waa ka dhammaaday waxaan maqlaynaa in la idin yiri noo duqeeya koonfur galbeed walaalayaal waxaan nahay shacbigii koonfur galbeed dowladdii sharciga ahayd ee koonfur galbeed baydhabo wareegeedii oo dhan aan taagannahay xaqu dirraan nahay xaqeeni waayo wax lagu fadhiyo ana lagu soo duulay waxaynu ka codsanaynaa dowladda Turkiga inaadan qabiil qabiil u duqaynin aadan u duqaynin waxaan maqlaynaa in lagugu soo noqday aadan qaxiye iyo xasan sheekh kugu soo noqdeen ku yiraahdeen koonfur galbeed guba walaalayaalow annagu idinku lid idinkuma nihin haddaad tihiin dowladda Turkiga waxaynu ka codsanaynaa qabiil qabiil inaadan u duqaynin aadan noo duqaynin annagu diyaaradaha adduunkana ma haystaan idinkaana haysto annagu reer koonfur galbeed ahaan ama maamulka koonfur galbeed ahaan idinkama soo horjeedno istiraatiijiyadiina kama soo horjeedno lidna idinkuma nihin sabab aad noo duqaysaana meesha kuma jirto waxaynu ka codsanaynaa diyaaradihiina inay nabadgelyana siiyaan Soomaaliya waxaa haysto qabaa'ilaa is haysto dowlad kama jirto kan nidaamkii dowladeed oo Soomaali ku heshiisay wuu lumiyey waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanaynaa inaydan qabiil qabiil u duqaynin reer koonfur galbeed waxay go'aansadeen inay iska kiciyaan beebiyaashaadii aad soo siisay ayaana loogu soo duulay oo lagu haystaa magaalada Baydhabo ayaguna waa iska bixinaynaa iyo cid walboo joogto xasan sheekh iyo ninka la yiraahdo aadan qaxiye waxay go'aansadeen in reer koonfur galbeed ay qaxiyaan waana laga qaxay magaaladii Baydhabo cid walba oo adduunkana waa ogyihiin cid walba oo maanta Soomaaliya joogtana way ogtahay walaalow Jubbaland ma aadan duqaynin Puntland ma aadan duqaynin sababta anaga noo duqaynayso maxay tahay sababta anaga noo duqaynayso oo nin aan sharciyad haysanin mandate-kii ka dhammaaday ku leeyahay noo duqay sababta noo duqaynayso maxay tahay waxaan ka codsanaynaa mar kale iyo mar kale inaadan yacni dadkeeni iyo shacbigeeni aadan duqaynin reer koonfur galbeedaan nahay xaqu dirraan nahay dowladnimadeeniyaa lagu soo duulay dowladnimadeeniyaa la burburiyey bannaankan ka joognaa waa gelaynaa waana qabsanaynaa waxaan kaa codsanaynaa inaan ammaan kaa helno nabadgelye kaa helno qof reer koonfur galbeeda lid kuguma ahan dhibaatana kuguma ahan laakiin inay qofku soo adeegsado oo mandate haysanin oo dowladnimadiisana meesha ka baxday in adiga aad u adeegtid aadaa looga fiican yahay beesha caalamka waa u jeedaan magaaladii Baydhabo ahayd ee caasimadii koonfur galbeed aadan qaxiye iyo xasan sheekh waxay ku sameeyeen oo u jeedin magaaladii waa laga qaxay waan ka xunnahay dadweynaheeni waxaana ka codsanaynaa inay ka fogaadaan meel xiraha ciidanka iyo meelaha u dhow inay ka fogaadaan layskama harsana layskamana hari doono taas waa midda oo Turkiga shacbiga koonfur galbeed walaalayaalow guush waa dhowdahay isku duubnaada meel walbo aad joogtaan dal iyo dibad war qof ogolaanaya male qof in sharafkiisii qofna wax yeelayo qof loo saarinayo war ma waxaad aragteen Puntland soo ma jeedaan inay iska difaaceen waa lagu duulay oo dadkoodii dal lagu dhex sameeyey Jubbaland waad aragteen u malaynaa si sharafay isu difaacday way annaga isu difaaci laana sababta isu difaaci laana reer koonfur galbeedow maxay tahay see ku ogolaatay see dadka meel kula fariisanaysaa see ka yeelaysiin in maantay nin aanan yacni macnaba ku lahayn Soomaaliya aad u jeedaan xamar wuxuu ku sameynay dadweynihii Soomaaliyeed oo xamar wuxuu ku sameynay aad u jeedaan sidaad ku ogolaateen cid walba oo ku abtirsata koonfur galbeed walaalow midnimadana qaado sharafkaagana qaado ha oga baqin adnaha oga baqin war nafta maray goysaa ha baqin laakiin sharafkaaga beri intaad istaagaysaa yaa la fariisanaysaa cid walba waxaan ka codsanaynaa reer koonfur galbeed meel alle meeshaad joogtaan mudaaharaad ha la qabto ha laga hor imaado dhammaan meel walba aad joogtaan